العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد waxaan la qaybsanaynaa farxadinta iyo soo dhaweynta iyo tahaniyada ardada qalin jabinaysa macadka markaska waa ardadii labaad ama dufcadii labaad ee qalin jabinaysa waxayna dhanyihiin 120 arday oo dugsi sare ama thaniyada ay ka qalin jabinayaan 57 arday waxaan ku bogaadinaynaa kuna baraarujinaynaa cilmiga ay ku sii dadaalaan mana ahan meeshii ugu dambeysay iyo qalin jabin toosa ee waxay tahay waa qalin bedelasho maxaa yeelay ahlu cilmiga in badan waxay tilmaami jireen cilmiga ku dadaalkiisa iyo qofka mar walba inuu sii dadaalo qofka thanawiyadii hadduu qaato waa un maraaxisha kamida dukumentiyada un keliya ee ka tarjumi maydo qofka cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo garaadkiisa ka tarjumi maydo waxaana muhiim ah qofka inuu dadaalo ahlu cilmiga waxay ahaayeen khiyaartii hore inay cilmiga ku dadaalaan waqti aad iyo aad u fara badan weliba waxaan tusaale u soo qaadan karnaa ibnu mandah raximahullahu tacaala xaafid dahabi wuxuu sheegaa markuu u tarjumaynayo inuu ahaa ninkii ugu rixlada badnaa ee ugu dawaafka badnaa caalamka ilaa iyo waxaa la sheegaa 30 iyo dhowr sano inuu caalamka dawaafayo cilmiga uu soo qaadanayay waa tusaale muhiim ah waaye ahlu cilmigana ay soo qaataan weeye ahlu cilmiga waxaa ka mid ah qaar culimmadooda ay fara badnayd dawaafka caalamka ay marayeen iyo dholalka caalamka ay marayeen keentay in ahlu cilmi aad u fara badan cilmiga ka soo qaataan tarjumada markaad akhriso alimaam adahabi ibnu mandah almizi ibnu casaakir alimaam albukhaari waxaad arkaysaa in la yidhaahdo kun sheekh wax ka badan ayuu cilmiga ka qaatay iyo kun caalim wax sahlan markaa ma ahan waxaa ugu badnayd intaan arkay alimaam abu bakar sacad as-samcaani raximahullahu tacaala saaxibu qawaadic aladilla fi usul fiqi waxaa la sheegaa 7,000 oo sheekh inuu cilmiga ka qaatay ayaa turjumadiisa ugu sheegaa waa arrin la yaab leh cajiiba inaad dadaalno waa muhim culimadu waxaa ka soo helaysaa qaar hal sheekh oo keliya laga yaabo inay 20 sano iyo wax ka badan cilmiga ka dalbaan oo ka raadiyaan oo fariisaan waxaa ka mid ah ibnu jawzi raximahullahu tacaala sheekhiisa salaami waxaa la sheegaa inuu cilmiga u hoos fadhiyay ilaa iyo 30 sano wax ka badan inuu cilmiga ka baranayay sidoo kale mucaasiriinta kuwa ay jirtaa محمد بن قاسم وحال الشيخ شيخي محمد إبراهيم على الشيخ إنه علمك كدل بيدور إلى ما تصر ووصف الديين التويتر رحمه الله تعالى شيخي سي العنقري وحال الشيخ سيدو كلام دور إلى ما تصر إنه علمك ووصف الديين كبرنا وإن الديال نوية علمك السيق الله حلقاتك كود ديالنا وحنده كلام مركز الإمام الوادي وحيابه يقدوا إياهي مراكزك لوحة كمدا وإن بلن ومعاهدة ardayda sidaan oo kala qalin jabiyay lama sii baro lama yiri magaalkaada iska gal shahaadinta la siiyo soo baxayo ma jirto ardayga waa uu sii dadaalaya xalaqadii hore ama dufcadii hore dufcadan ka horeeyay ila aan in badan oo kamida markaas waa joogan xalaqad gaar ah leeyihiin cilmiga lagu dhiso oo funuunta la dhisayo kuwa hadda qalin jabiyay laftooda ma aysan tagin xalaqadkii wali cilmiga duruusi waa u sii socotaa subaxleeyo galableeyo jimciga qabsatay loo kala waciyay ayaa qolo walba iyo dufco walba cilmiga ay sii baranayaan waxyaabaha uga duwan yahay in badan oo macaahida oo kamid yahay waan in soo dhaweynaa mar iyo laba iyo saddex intaba intii ka soo qayb gashay wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta